وأتقرن إنسان ننكي سحابي أها رسولك قرب كيس الجوجا سلاسل ودقال ما يا قال بدن بدلي لكن سنوال ناوعي بقولني منايا مركو قلني أنت صحابتي وفرحايا وحيداهيان هنيئا له هنيئا إنه في الجنة هنيئا له شهادة إنه في الجنة يعني وهم بلينا شهادة وكل انتي جنة وكل جيران كان لكن وحي أركايا ظاهر كيس كليا رسول كان مركب وجهستي مركاسا وحجري كلا والله إنه سنجنة قلينين بل وحان أركا بهل يرو شال شملير وحيرو مدح اللغو حرتا مقورتا أو خياني أو غنيمذي مسلمين تقالوا ذلك الصفورتي انتو كلا دحبحي كهور انت عن امد الله قيبينين وحوله ددوينه او مركا يدا بهاشي وكلا دحبحي ايا waxaan arkaa inta madaxa loogu xiray ila madaxa lagu xiran jiray ayaa dab lagu shiday oo lagu hulcinaya waaninkii rasuulka la dagaalamay ee la safnaa ee gaalada laay ee la rabay inuu shuhadada deeya jannatul firdaws in la geeyo ayaa lagu leeyahay wala cadaaba maxaa lagu cadaabaya khiyaano yar oo uu sameeyay waa maxay khiyaanada xoolihii dadweynaha ayuu wax yar ka xaday bifahmaysan wala xoolihii dadweynaha ayuu in yar ka xaday ilaahay muxuu leeyahay waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyaamah qofkii wax yar isdaba mariya وحير قفكي استوى مريا أو خيانة سميا وحو آخر الإيمانية وحي يرى يأتي بما غل يوم وحي أو خيانة آخر الإيمانة أذيك أما حقو يراتو ما دام أدعواتي وحول بوحق درات كل عدد وحولة دويناء أما حول ولالك إن أد الإيمان يسد مالك أما يريس أما إن أد قادي كرتين الله إيمو أدونك واحد قادتا أو أد حدا يا هدي مسؤول لقاديقو انت عاد سلاذا هاي مالك قيامها دورك واتكو قادي كرتا انت عاد سلاذا وانا اوغو والله قلاس كاس بياها حبد يرو كن قلين ير او آدنا علينا والله ما قادي كرتي والله نادا قادي كرتي لكن هو عذاب ما قادي كرتي نار تنبكو قليسان بركة معاون اكسن اناد اسئلة لسان اناد اسئلة لسان ادونكو حواد عنيسان markii waxaan la yaabaa dhulalka faraha badan daaraha faraha badan guryaha faraha badan waxaanu adduunkan la camiraayo bangiyadan la buuxinaayo oo haddana hadhow laga tagaayo waa lagu ciqaabaa hadhow adduunka sifadeeda waxay tahay xalaasheedana waa xisaab xaaraanteedana waa cadaab xalaasheeda waa nabi Suleymaan alayhi salaam ambiyadoo dhan buu u taajirsanaa rasuulkeena ma ahan رسولك أنا فقير ما هنا لصعدها حتى هذول وضع علوش كل حرن جري فقير ما هنا تاجر بوها لكن نبي سليمان ما تجيب إلى هاي سيي ولا أركيي أنبياء أفرتم بكتم بين الجنة حرامنا وحسوا حلال لكن أنت لحسابنا يؤفرتنا كتم بينا رسول شكله أفرتنا أجهر مرايا يا أجهر واحد جنة قال رسول كنا maxaa waay isagoo ugu taajir sana buu hadana isla markaas ugu faqiir sana ma dhici karta ninta ugu adduunka ugu taajirsan dhan inuu hadana ugu faqiir sanaad ma dhici karta haa way dhici karta waa shay mucjizo ah rasuulkeena ah maxaa yeelay eeg maalin baa waxa loo horta buurihii Makka waa wada buuro ayaa intay la hadleen waxay yiraaheen waa shay mucjizo ah aan dahab ku noqono wuu ka diiday marka dahab ima noqonaysaa weey عشان wax ka qiimi badan buu haystaa mar rasuulka la jiro buuraha ay dahab u noqdeen aan rasuulkeena ahay wuu heli kari eeg laakiin wuu iska celinayaa taajirnimada xoolaa loo keenay laba buurood oo isu dhawaa dhaxdooda ayaa xoolihii arigii ay mari waayeen waa laba buur markii loo keenay iyadoo la taagan yahay iyadoo la quminin xare la geeyay ayaa nin Araabiya soo maray reebaadiyaha way iska hadal adag yihiin wayna xoolo adduunyo jecel yihiin markaas afkiisii rasuulku agmara ma yaqaan saasha markaas uu yiri Allah xoolaha nin kale taajirsanaa Allah muxuu ilaahay adduunyo siiyay
dhagiisay ku dhaceen rasuul wuxuu yidhi war maxaa tiri kaali ku celi wuu ku celiyey wuxuu yidhi qaado waxaan hadday qiimi lahayn qiimi ma lehe waa xero dhan waa 2 buur dhexdood qaaduu yidhi xoolaha wuu qoslay wuu isaga tegey wuxuu yidhi miigu ciyaaraysaa war kaali kugu ciyaari maayo xoolaha qaado waanaa weligii 2 neef helin dhab inay tu arkay markaasuu geesaha ka maray xoolihii hal muuna reebin wuu kaxaystay reerihii markuu u tegey waxay arkeen boor waa maxay boorkan maduulaanba mise waa fulaan oo hadday ka tegey oo haddana kumanaan xoolo ah soo kaxaystay wada quminaay markaasaa la yaabay maxaa dhacay wallaahi wuxuu yidhi mar walbana gadaal buu fiirinaya ogow war xoolahan dhab maahee intaan isma siiyee armaa lagaa daba yimaadaa gurigii buu ku tegey markaasaa wuxuu yidhi wallaahi waxaan ka imid nin aan fakri ka baqaynin agtii ayaan ka imid waxba umaanan reebin wixii dhan waa fakri maba ka baqayaba ninkaa waa sida la doonayo laakiin muxuu xoolaha iskama bixin jiray rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh waxbuu ku raadin jiray interestaa jira la soco oo waxaa loo baahan yahay interesta in la helo ninkaanuu ku dabaayaa gaal weeyaan inuu ku dabuu rabaa markii reerihii qabaa'ilkii oo dhan warkii wuu gaaray waa siduu rabay waa la wada yimid ninkii baa daawasho loogu yimid xoolihii war waa xaggee nicmadan meeshaad ka keentay waa wiilkaa agtiisa sala allahu calayh reerkii oo dhan baa soo wada islaamay wuxuu leeyahay xabiib sal slam cali markuu khaybar uu duulaanka qaaday maanta waaba la ogaan doonaa waxaa dhiig daadiyuu yidhi markaasuu war u kaadinayo dhiig ha daadinine nin inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo ayaa waxay kaaga khayr badan tahay oo aad islaamka u bandhigtid intaad dili lahayd gaalada inaad u bandhigtid oo uu soo muslimo ayaa waxay kaaga khayr badan tahay min xumuri nicam geela kuwiisa mid madow yacni maanta adduunyada oo dhan hal nin oo aada soo muslimisid adduunka oo dhanaa ka qiimi badan maxaa u malaysaa qabiil dhan oo lasoo islaaminaya waxoogaha yaree ariga ah la siiyey sideedaba sooma ogidiin lacagaha wuxuu ilaahay u soo dejiyey lacag waxa la yidhaahdo fuluus naqd nuquud waxa la yidhaahdo ilaahay wuxuu u keenay adduunka horta ma garanaysaa in lagu noolaado keliya ma aha irsaaqda ilaahay baa keenay laakiin wuxuu u keenay cabsida ilaahay in lagu helo lacagta ayaa cibaadada loo keenay ee cibaadada ma aha in lacag lagu helo annaga cagsiaan samaynaa lacagaha in la sadaqaysto waa cibaado ajira lagu helayaa ajirkaasi sadaqada yaa keenay lacagaha keenay lacagaha in lagu soo dabagaalada oo inta laga dharjiyo ay soo islaamaan in cabsida ilaahay loo kaalmaysto lacagaha xajka in lagu aado in zakada la isaga bixiyo ma arkaysaa laakiin lacagaha looma keenin in adduunyo lagu dhiso cirkaa guryo galay in lagu dhiso in la kaydiyo bangiyada maya in cibaadada ilaahay loogu kaalmaystaa lacagaha loo keenay khadiijo waad garanaysaa umuna khadiija radi allahu canha xoolaheedii oo dhan waxay ku bixisay maxay diintaasi dacwadaasay ku bixisay waxaad arkaysaa maanta waxaa jira in diintii iyo cibaadadii iyo culuumtii sharciga ahayd ee la rabay si kuwan loo helo in lacag lagu iibsado la doonaayey ayaa la baranayaa culuumtii kadibna cilmigii sharciga ahaa waxaa lagu raadsanayaa lacag wuxuu wax u baranayaa qofkan oo uu 10 sano 20 sano ilaa PhD u qaata doctoraa kadibna xaashidaas hunguriyo ku raadinayaa waa wax madmuum ah aad u qurun badan oo xun weeyaan maadi baro lacag martaa xisaab baro science baro IT baro waxaad barataa computer administration adduunyo maadi iska baro dhakhtarnimo baro injineernimo baro farsamo baro ku raadi adduunyo way isleeyihiin waxaan laakiin diin intaad baratid qur'aan xifdisid imaam jaamacado islaamiya shareeco ka soo baxdid in aad cilmigaagii markaa kadib aad adduunyo ku ururisid xaaraan waay lama ogola maxaa wacay waxaad dayacaysaa cilmigii qiimiga badnaa ayaad wax aan qiimi lahayn adduun oo dhan baa garabkanaaca ilaahay uga liitaa maxaad u malaysaa kis yar oo xaaba adduunya inaad cilmigaagii ku raadiso yaa lagu caayey reerihii culimmadii reer banu israa'iil saasay xoolaha dadka
آيات إلهي يكويب سجرين ثمنا قليلا بخس دراهم معدودة يكويب سجرين باليه والله عايد الكاس معال الربا مركب أديك وحال الربا الدين تان إن لغو راديو علمي شريعة قرآن كان حولها إن لغو راديو جنة قالئة يا لدونا الله يدن بركيه الله يدن بركيه مقالة الله يدين نبديه إلهي مقالة أخلاق دي هيدين هاجاجيو مقالة كليل كذا الله يدين كقبوجيو مقالة أمد دقن ولا لا الله كيالو قلبي يضغط هل الله كيالو